nin iyo xaaskiisa ayaa u guuray guri cusub. Arooryadii ugu horreysay ee ay ku waabaristeen iyaga oo wada quraacanaya ayay gabadhii oo tilmaamaysa daaqadda muraayadeeda beerta ka dhex muuqata ee ay wadaagaan iyaga iyo reeraha deriskooda ah ku tiri ninkeedii, eeg bal gacaliye gabadha deriskeenna dharka ay dhaqday nadiif ma aha, waa hubaal inay soo gadato saabuun jaban. Gabadhii waxa ay la qabsatay mar walba oo ay aragto gabadhaas deriskeeda oo dhar wadhaysa in ay nadaafadeeda iyo nadiifiyayaasheeda ay dharka ku dhaqato ka faallooto. Maalmo kadib gabadhii way amankaagtay markii ay ku aragtay xadhigga gabadha deriskooda ah oo ay suran yihiin dhar aad nadiif u ah. Markaasay ku tiri ninkeedii, ugu dambayntii way baratay sida dharka loo dhaqo. Ninkeedii ayaa ugu warceliyey, gacaliso, aroortan goor hore ayaan kacay oo aan nadiifiyey muraayadda daaqadda ee aad ka eegaysay gabadhaas dharkeeda oo iyadu isku ahayd. والصبر والإحسان والصبر